xaflad soo dhaweynah ayaa magaalada Muqdisho lagu sameeyay macallimiintani ka timid jaamacadda caalamiga ah ee Afrika ee dalka Suudaan kuwaasi oo marti u ah jaamacadda Banaadir ee Soomaaliya. Macallimiintan ayaa muddo bil ah duruus taxane ah ka bixin doona qaybta waxbarashada sare ee jaamacadda ee Masarka, gaar ahaan takhasuska shariicada iyo qaanuunka. iyagoo arintani ay ka dambeysay heshiis iskaashi oo 2 sano ka hor ay kala saxiixdeen jaamacadaha Banaadir iyo Afrika. macallimiintani ka timid dalka Suudaan oo lagu kala magacaabo Dr. Gazamal Abdi Ghafaar, Dr. Abdullah Bashir iyo sidoo kale Magdi Mahbuub Al-Zibair ayaa waxa ay ka hadleen xafladan soo dhaweynta ee loo sameeyay, waxaana sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin booqashadan ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale sida diiran ay u soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta jaamacadda Banaadir. gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar ayaa u mahad celiyay macallimiintani ka socotay jaamacadda International University of Africa ee dalka Suudaan sida ay u suura geliyeen in takhasuskani laga bixiyo jaamacadda Banaadir sanadkii labaad oo xiriir ah. marka runtii farxad weyn ayay u tahay jaamacadda Banaadir muassasadeeda iyo maxaan ku raahdaa golaheeda tacliintaba in daraasadii marka horeba loo sameeyay jaamacadda Banaadir oo ahayd dib u dhiska maskaxda Soomaaliyeed in qayb ka mid ah ay qaadanayso oo ah dib u dhiska iyo horumarinta iyo soo kordhinta cudud aqoon leh oo qayb ka qaadata garsoorka Soomaaliya sidii loo hagaajin lahaa aqoontiisana kor loogu qaadi lahaa. marka muddada halkan aad fadhisaan waxaa ogaanaysaan inaad tihiin dad wakiil ka ah ummadda Soomaaliyeed, aqoontaas aad qaadanaysiina dib ula laaban doona haddii la yiraahdo. waxaan jeclahay in aad iyo aad ugu hambaliyeeyo dhammaan aqoonyahankii ka soo shaqeeyay barnaamijkan. Professor Ismaan Maxamuud Xaaji Dufle, gudoomiyaha guddiga waxbarashada iyo caafimaadka u qaabilsan aqalka sare ee baarlamaanka isla markaana hormuudka dugsiga takhasuska ee jaamacadda Banaadir, ayaa isna xafladda ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida jaamacadda Banaadir ay u xaqiijisay hirgelinta takhasuska shariicada iyo qaanuunka iyo iskaashiga u dhaxeeya jaamacadaha Banaadir iyo Afrika. ana wali ku hadlaayo madaxa dugsiga takhasuska waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u soo jeediyo macallimiintii hore ee dafcadii koowaad yani u yimid uu ka mid ahaa Ustaad Abdullah Maxamed Al-Bashir iyo ustaadkeeni kale ee la socday yani muxuu ahay to dafcatul ula macallimiinta waxa runtii sidii sharafta badneed iyo xurmada badneed iyo waqtiga ku beegnaa wali waqti loogu talagalaha oo runtii ay u soo yani uga faa'iideeyeen ardaydii ama muxuu ahay to aqoonyahankii ka soo qayb galay. Ahmed Ali Kaahiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.